waxaan deganahay hadda gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka waxaan ku noolaa degmada Jamaame waxaan ka mid ahaa shaqaalihii wasaaradda beeraha ee halka ka shaqeynayay muddo bishii labaad kowdeedii 19 oo ahayd markii qaxwo inagu bilowday ayaa habeen maghrib bacda maghriba ayaan shidaal igu qarxay shidaal dabkaasan ku gubtay oo aad iyo aad ugu dhaawacmay waxaan ka soo kismaayo ayaan muddo aalay waa ka soo baxnay waxaan ku soo qaxnay markab waxaan soo fulay badda waxaanu magaalada Mombasa ayaan Kenya ka soo galay waxaan raadsaday meel aan dhakhtar ka heli karo waxa la tilmaamay magaalada Siyelo isbitaalka Siyelo waxa aan gaaray bishii sagaalaad 1991 waxa aan halka markaa waxa aan kula kulmay daryeel wanaagsan qalliin baan galay halkana la iga gooyay gacanta buudada hilibka sugan halkan la saaray maalintii ugu horeysay ee aan waarka galay waarku wuxuu leeyahay laba qaybood mise saddex qol oo ay rag ka buuxaan mid TV bulahmina TV muulahayn gabadh neerasa oo hablihii ka shaqeynayay meesha ii yimi waxay igu tiri waxay garatay oo garwaaqsatay inaan luqadda ku hadli karin deegaanka lagaga hadlo marka waxay tiri Maxamedow adigu luqadda fahmi maysid meesha lagaga hadlo marka mid bukaan oo kale oo dadkan fahmi karay ayaan soo qaadaya halkan aan keenaya adigana meesha TV-ga laan ku geenaysaa TV-ga aad u daawato aanad u caajisin oo aanad caajis u dareemin waad mahadsantahay baan ku idhi maalintii dambe waa ii timi waxay ku tiri waniyo ma arag inay cid ku imanayso cid ma ka taqaana magaalada waxaan ku dhimay cid kama aqaano nin qaxoontiyan magaalada cid kama aqaan waxay tiri hadii aan ku keeno miro iyo qudaar ma cunaysaa waxaan ku idhi waxaad ii keento wad ku mahadsantahay ha marka waxa ay markay shaqada soo galayso ee keeni jirtay kolba waxa aan laga heli karin isbitaalka ee had iyo jeer bukaanka badan aba dibadda looga keeno reerahooda ay uga keenaan waxa aan dareemay in aan markaa wehel oo kale meeshii ka helay ama ehel aan ka helay runtii iyadana ehel ahayd neeras ka shaqeynaysa meesha oo ay daaweynaysan ahayd taasu waxa ay maskaxdeeda ku reebtay xusuus aad u weyn maalintii aan ka baxay isbitaalka waxa laga qaadanayay dadka waxa uu qiimo ahaan uu ka qaadanayay 100 shilin oo Kenyan shanta habeen ugu horeysa intay u tagtay management-kii bay tiin ninkan waa qaxoonti waxba ma haysto laga daayo 100 shilin ee Kenyanka laga cafiyo way ku guuleysatay waa laga cafiyay markii aan baxay way si kacaysay magaalada ii dhaweysay intii aanu sii soconay baan hal su'aal weydiiyay waxaan ku yiri Florence waxa tahay gabadha ugu yar neeraska ama kalkaaliyaasha meesha ka shaqeynaya maxaad ku keentay inaad caawiso inagoo isku luqad ahayn isku dhaqan ahayn wadan kale ka imi waxdana aan adiga lahayn maxaad ku fikirtay inaad caawiso gabadha waxay igu jawaabtay waxaan aaminsanahay hadaan wax wanaagsan sameeyay inaan wax wanaagsan helayo ayaan aaminsanahay erigaasu wuxuu u noqday su'aal jawaab waafi ah oo ma dhaafaana waxaan ku dhigtay xusuustayda ilaa iyo intii aan ka soo maqnaa ee aan xiriirkaygu kala furanaan Mareykan soo galay in wuxuu noqotay abuur in maskaxdayda ku biqlamay oo ka soo baxay macnaheedu hadda wax wanaagsan sameeyo wax wanaagsan baan helayaa sanadkan aynu ku jiro bishii lixaad ayaa waxaan kulanay inaan Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed waxa ay sheekadii Florence 30 sanadood ka hor aan cid walba u sheegi jiray ayuun baan la wadaagay Saadiyo waxay ii sheegtay in gabadha raadinayso iyadoo soo heli doonto way soo heshay telefoon baa ay ii soo dirtay goor subaxnimo ah oo tidhi Florence telefoonkeedu waa kan telefoonkii waan wacay waa la salayga qaban waayay waa la igu dhigay waxaan gartay inuu yahay telefoonku aan garanayn text message baan u diray waxaan ku yiri ima garanaysid waxaynu kulanay 30 sanadood ka hor 1991 marka aad neerska ahayd isbitaalka Silo ka shaqeynaysay waxaan ahaa bukaankaaga waxaad ahayd kalkaaliyahayga aad iyo aad baan aad ii wanaajisay waxaan ku raadinayay 30 sanadood sida aan maran ku idhaahdo waad mahadsantahay marka waad mahadsantahay
farriintayadii sidii bay xiriirkaygu ku bilowday bishii 8aad ayaa markaa waxaan aaday Afrika waxay ahayd arinka Florence inaan la kulmaa arinka ugu horeeya ee koowaad ee aan u tagayo Afrika Afrikaan tagay Kenyan tagay Machakos ay deganayd oo Nairobi xoogaa yar u jirta halkaasaan taxi ka qaatay meeshii baan ugu tagay meeshii baan ku kulannay aad iyo aad baan ugu mahad celiyay oo aan u sheekaysanay oo aan isu wareysanay gabadhii berigaas ee caawisay markii aan qaxoontiga ahaa ee aan dhaawac ahaa ee aan baahnaa ee aan cidna lahayn iyadoo aan danna iga lahayn oo qof bini aadanimo kaliya iyo caawinaysay waxa aan dareemay xoogaa inuu culays garbahayga ka fuqay markii aan kulanay kadib aan cabaar sheekaysanay dhowr jeeroo dambana aan is aragnay marka sheekadaydii halkaasay nuxurkeedu ahaa qolooyinka Kenya iyagoo joornaalkoodii iyo telefishinkoodii iyo dhiirigelinayaan shaqaalahooda caafimaadka ay isticmaaleen insha Allah biidnillaahi kariim khayr bay iska noqon doontaa halkaas ku dhamaatay